أرتي ترى الصومالي ما بقلي ترى ما بقلي ترى الدوم بيهاين ما أرتي ترى ما ندور إنا ما نهرب له أبي ولا لنا يا تو أمان تيجي نسولف توقعنا أيا ولا لنا يا نبي محمد باي نوش هيك حديث كان صوعك بارك الله ورد الحبش بالي إن ما ير أو خائمين إيه أو قرع ذي كهرداي إنك إنه مش هيك كلام صومالي Soomaalidu hayso siyaasaddu waa la isku qaban karaa laakiin waxa weeye Soomaalinimada ka weyn waxa la isku hayo yaanu ku qaxno dhulka yagii baanu tagnay ma dhulay lahayd baan tagnay waa dhulay Soomaali ka haysato waa dhulay Soomaali ka haysato hay aniga waa Soomaaliyad amxaara iyo Oromo iyo Xabash maxaa naga leena haddii Itoobiya maanta Muqdisho qabsato way kari kartaa inaga saxad bay noo dhaxeeya laynama qabsan karo waa dad walaalaynu nahay adeer taa weeyaan Itoobiya caaw haday damacdo tiraado waxaan ka qabsanaya inta soo gobol way kari kartaa because xadba ma jiraba horta dambar reer guuraabale laakiin wax Soomaali ah nimanka isku badaqan minni nimanka kullaan iyo Soomaali iyo waxa loo dhan Soomaaliba ma ahayn intii dambe ee ay lixirkii isku darsanay ayay Soomaalida noqdeen adoon bay haayeen Soomaali gool waa adkaal of Soomaali la garanayo ma ahayn ninku waqa qawreen marka meesha la tagnay inuu Talyaanigu guur soo baabaay bay ahayd ab bilaada xamar waxaan ugu tagnay shan xabadood laba waxay ahaayeen xabaari Talyaani laamiga markaa mukarrabana waxa uu sameeyay Faisal Abdulaziz iyo baarlamaanka iyo waxa markaa inaynu teelnadis intii dambena qoyna qabtay walaalhay aniga waa Soomaaliyad ay amxaara iyo Oromo iyo Xabash maxaa naga leena ay bay qaldan yihiin waxay hayd inay walaalaheen inay maxay hayday maanta halka inay ka istaagaan ma yahayn laakiin ma wanaagsanade Xabash iyo Oromo anaga waxba nooma aha Soomaaliyin ba walaalahaya dhamaanta Soomaaliyo dhan ba walaalay axmaara iyo Xabash toona anaga walaalahay ma aha walaalkay waxa Itoobiya waayo Soomaaliya iyo Puntland waxay dhibaato noo daysteen iyo sida inoo baabiyeen iyo diyaaradaha yadii intay taciyaan inuu baabiyeen iyo sida inoo laayeen ilaahayna weyna waaxid waada ma arti tarna Soomaali ma baqli taro doon bay haayeen ma arti tarna ma la doorayna ma la rabno tu amaan tayada nasuulaf tuqaxnay ayaa walaalanaya haye maxayna tara weyna laayaan وين الله يارون أساسا باس نومريان أساسا بينو دبس أساسا بينو دبس ما أرتي ترى الصومالي ما تقتلي ولا الوح ويان مرك الله إيجو الصومالي واحد دوني واحد إنجا شنت الصومالي دي نقوم بدوني وحويان أنت صورنا وحين الله هو ولا لدين وكا وحد ولا المركز تبع إن أي صومالي أي أوهشي سي صومالان waxaan wataaca oo diyaaradda halka joogta aynu ag taaganahay teedii baa marxaatigu u furmay inay waxba ahayn waxaad ku garanaysaa waadigii maqlayay madaxtooyadooda wixii lagaga hadlayay waadigii maqlayay waxay ku hadlayeen gudaha oo waxa weeye ninka la yiraahdo wasiirka ra'iisul wasaaruhu su'aal buu weydiiyay war koonfur Soomaali u diyaarsan inay doonaan ma laha yaabuu taasa ku cadeynaysa waxana oo dhan warbar ku taag weeye halkan adeer markaan kaaga fasiro waxa weeye Itoobiya waa cid walba iyada ku dhaanta hijradii labaad baan anagu tagnay nabi maxamed baa u sheegay nabigeena kaleey salaam ayaa u hijrooday Itoobiya dhibaatadu markaa haysay tanna sidii la eg bay ahayd cidda ku caawisay ama noloshan iyadoo gam laga dhigaya Itoobiya adeer ahayd taana yaa la isku khaldin laakiin dadku waxay leeyihiin markii siyaad baru halkan xasuuqay Soomaaliyana waa laga dagaalamay hadda Soomaalidii hore ma aha kuwii la dagaalamay ma halaysinjiga Soomaalinimo marka la eego iyo amxaari Itoobiya marka la eego adu maxaad ku kala doortay labada dhinac anigu adeer ma ku warrama dadku waa sidii annaga joognay koonfur inaga ka soo dagaalamayna imika labteeda ayaynu Soomaali doonaynay mar kastaba in Ilaahay u gargaaro wadigooga abaaraha halkeen inuu uga gargaaranay waxa weeye shan Soomaaliyeed baa meeshan jiray yaan lagu khaldin Soomaalida in jirtay kala jeegaysaa waaya shantii Soomaaliyeed hal la helo shantii Soomaaliyeed way hore u kala tageen marka adeer wuxuu axmaarka iyo Itoobiya axmaar wax la ma jiraan dadka Itoobiyaanka adeer ku dhaama dadka Itoobiyaanka abaal ku leh halkan markii la rusheynayay markii la garaacayay labadaba haddii cid laga cararayo
iyaga adeer burburinayo burburintu ku jiro Soomaalinimada diidana mar kasta Soomaali diidkuna waa iyaga inaga ma aha waxaan ku cadeynayaa Soomaali halkan u bay ka socotaa halka waxa laga yiraahdaa imika wadiga arkay dastuur federal ayaa la sameeyay halkan laga sameeyay kilka sanaad meed maqli jirtay dawlad kilka sanaad leeyahay maqli jirteen halkan waa Soomaalidii weeyaan galbeedka Soomaalidii sida waxa leedahay amxaar iyo Soomaali amxaar bay walaalo dadku yaan waxa lagu sheekaynin nabi maxamed baa noo sheegay xadiiska soo eeg barakallahu warda xabash bali inama yar oo khaa'imiin ah oo garacdi ka hadhay inaga inooma sheegi karaan Soomaali anaga ku dhimanay 77kii dadka dagaalamay lagu xasuuqal kale ahay diyaarad meel duqaysa iyaga ma jirto midda kale mid baan ku sheegaya iyaga maanta Soomaaliya Itoobiya wuxuu dhaxayaaba ma jiraan haddii Itoobiya maanta Muqdisho qabsato way kari kartaa inaga saxad baa inoo dhaxaya laynama qabsan karo waa dad walaalaynu nahay adeer taa weeyaan Djibouti xad baa inoo dhaxaya bal iyaga weydiin nimankan idin sheegayo oo xadka idin dhaxaya halkuu yaala dhaha Itoobiya caaw haday damacdo tiraado waxaan ka qabsanaya inta soo gobol way kari kartaa because xadba ma jiraba hallaysinjiga Soomaalinimo marka la eego iyo amxaar Itoobiya marka la eego adu maxaad ku kala dooratay labada dhinac anigu adeer ma ku warrama dadku waa sidii annaga joognay koonfur inaga ka soo dagaalamayna imika labteeda ayaynu Soomaali doonaynay mar kastaba in Ilaahay u gargaaro wadigooga abaaraha halkeen inuu uga gargaaranay waxa weeyaan shan Soomaaliyeed baa meeshan jiray yaan lagu khaldin Soomaalida in jirtay kala jeegaysaa waaya shantii Soomaaliyeed hal la helo shantii Soomaaliyeed way hore u kala tageen marka adeer wuxuu axmaarka iyo Itoobiya axmaar wax la ma jiraan dadka Itoobiyaanka adeer ku dhaama dadka Itoobiyaanka abaal ku leh halkan markii la rusheeyay markii la garaacay labadaba hadii cid laga cararayo iyaga adeer burburinayo burburintu ku jiro Soomaalinimada diidana mar kasta Soomaali diidkuna waa iyaga inaga ma aha waxaan ku cadeynayaa Soomaali halkan u bay ka socotaa halka waxa laga yiraahdaa imika wadiga arkay dastuur federal ayaa la sameeyay halkan laga sameeyay kilka sanaad meed maqli jirtay dawlad kilka sanaad leeyahay meed maqli jirteen halkan waa Soomaalidii weeyaan galbeedka Soomaalidii nabi maxamed baa noo sheegay xadiiska soo eeg barakallahu warda xabash bali inama yar oo khaa'imiin ah oo garacdi ka hadhay inaga inooma sheegi karaan Soomaali anaga ku dhimanay 77kii dadka dagaalamay lagu xasuuqal kale ahay diyaarad meel duqaysa iyaga ma jirto midda kale mid baan ku sheegaya iyaga maanta Soomaaliya Itoobiya wuxuu dhaxayaaba ma jiraan haddii Itoobiya maanta Muqdisho qabsato way kari kartaa inaga saxad baa inoo dhaxaya laynama qabsan karo waa dad walaalaynu nahay adeer taa weeyaan Djibouti xad baa inoo dhaxaya bal iyaga weydiin nimankan idin sheegayo oo xadka idin dhaxaya halkuu yaala dhaha Itoobiya caaw haday damacdo tiraado waxaan ka qabsanaya inta soo gobol way kari kartaa because xadba ma jiraba waa ku soo dhaweynayaa bal wad la socoto Soomaalida iyo dadka Itoobiyaanka ah ee Itoobiya ku nool kiiba ku xigo adiga walaalka ah Soomaaliga maxaa keenay waxa weeye Itoobiya Soomaalidu hayso siyaasadda waa la isku qaban karaa laakiin waxa weeye Soomaalinimada ka weyn waxa la isku hayo waxa weeye Imaaraadka Carabtu waa 7 dawladood Soomaaliland waa dawlad koonfur dawlad bay noqon kartaa Djibouti waa dawlad waxa weeye dadkii laba iskaga jira siyaasadii iyo waxa iskaga jira iyo waxa isku haayeen bay iskaga jiraan waxa weeye marka Ameerika oo kale waa Mareykan haddana waa dhowr iyo 50 dawladood waxa weeye Soomaaliga Ilaahay baa ka dhigay wareer siyaasad kale waxa weeye waxaan wax kaga doonaynaa ictiraaf korta Ilaahay baa haya xabashidu waxa weeye dad aan saarnahay ma diidayno Itoobiya laakiin de Soomaaliya xabashi hadii la isoo bardhigo waxa weeye daadir Soomaali weeye xabashiguna waa xabashi tawaka marka waxa la Soomaali bay xiga tii labada maxaa jir maxaa Itoobiya waa Itoobiya liyo yaanu ku qaxno dhulka yagii baanu tagnay ma dhulay lahayd baanu tagnay waa dhulay Soomaali ka haysato waa dhulay Soomaali ka haysato